الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي أرديدا كحرن جنال كانوا سلامنتين. maanta cashirkeena ku saabsan yahay ama aan qaadan doonaa exercise wili waxaan ku guda jirnay tenniska lixaad oo ah past continuous tennis waan ka soo hadalnay sida u shaqeeya maxaa la dhahaa tenniska lixaad magaciisa muxuu yahay qaabka u shaqeeya sida u shaqeeya formulas waan soo aragnay examples waan soo aragnay maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno ama exercises aan xalino waxaan ogeyn tennis kasta haddaan soo qaadano aan sheegno aan qeexno aan maaragtaa qaabka u shaqeeyo aan sheegno formula aan soo qaadano formula saan u shaqeeya formulas aan sharaxno sidoo kale examples aan sharaxno waxaan daba dhignaa exercise aan daba dhignaa oo ardayda ama asxaabta ku xiran channelkani ay ku fahmi karaan tenniskan haddii ay fahmeen iyo haddii kalaba marka asxaabta waxaan wargelinaa haddii ay jirto asxaab ama arday wadata questions ama su'aalo in qaybta commentiga nagu soo su'aal gareey karaan wixii cabashada ama su'aashooda ay qabaan tenniska qabaan way weydiin karaan maanta waxaan rabnaa inaan exercise-kan xalino balse intaan exercise-ka xalin waxaan rabaa ama asxaabta ama ardayda u sheega channelkani waa channel cusub haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato channelkani fadlan ha ka baqilin saar subscribe share like inta baad dhag noogu sii si aad u hesho casharo cusub adigana ku xiiso geli haddii aan lahayn kuwa grammarka haddii aan lahayn kuwa tensiska iyo haddii aan lahayn kuwa practice-ka ayna sii sheegay si asxaabta kale ama ardayda kale danayna maadadan Englishka ayagana ka faa'iideystaan asxaabta channelku wuxuu maraa meel u fiicneed channelka idinka soo gaarsiiseen mardhow ama waxaan rajay doonaa inaan live usoo gali doono asxaabta ama ardayda aan u maadicili doono maadaama channelkani ay kor u qaadeen channelkan ayaga kor u qaaday maanta meesha uu taagan yahayna ayaga soo gaarsiiyay marka asxaabta waxaan leeyahay inta dhimanna la sii gaarsiiyo aan la sii shargareeyo intaasna lagu saaciido marka haddii intaas ka soo noqdo maanta waxaan xalin doonaa afartan exercise slide-ka noo saaran oo ah waxaan lahay change into 6 tenses waxa u bedeshaa tenniska lixaad waxaan lahay change into 6 tenses u bedel tenniska lixaad su'aasha koowaad ugu horeysa waxaan lahay what do you do every day maxaa samaysaa maalin kasta lahay what do you do every day maxaa samaysaa maalin kasta tenniskan sida rajayno waa tenniska labaad inuu tenniska labaad maxaa noo cadeynayo tenniska labaad inuu yahay noo cadeynayo waxaan dhahnay tenniska labaad auxiliary ahaan wuxuu ku shaqeeyaa duo ku shaqeeyaa adverb of time ahaan wuxuu ku shaqeeyaa everyday ku shaqeeyaa hadda maadaama duuna aan u jeedno everydayna aan u jeedno waxaa noo cad inuu tennis uu yahay tenniska labaad ma la rabo arday inay ku reeraan waa loo soo sheegay waa loo soo qeexay waxa la tenniska labaad sana lahaa qaabkan u shaqeeyaa formulas waa kana examples waa kana adverb of time kisna waa kana hadda marka example am tenniskan waxaan la what do you do every day marka inuu tenniska labaad yahay maxaa noo cadeynayo waxa noo cadeynayo said everyday aan u jeedno waxay adverb of time u tahay tenniska labaad u tahay sidoo kale do midna waa auxiliary midna waa verb marka daarta laba do oo hal sentence ku jirto mid ugu horeyso waa auxiliary ila su'aalaha ka horeysa when what iyo when iyo who iyo maxay sameeyaan su'aalaha keenan sax intaas maxaa ku xigta auxiliary ku xigta do ku xigta do ku xigta what ku xigta do-dan waa auxiliary do-dan waxay tahay verb-ki waa marka what do you do every day maxaa samaysaa maalin kasta inta aan bedelin horta inaan fahanaa tennisku yahay marka fahanto tennisku yahay marka fahantid kadib waxa xali kartaa marka balse inta hadaa fahmin tennisku yahay san tenniska aad inaad bedesho hadaadan fahmin tennis kale uma xali kartid okay hadda marka waan fahanaa inuu yahay tenniska labaad uu yahay su'aal what do you do every day maxaa samaysaa maalin kasta okay aan ka dhigno tenniska lixaad waxaan soo qaadanay you iyo they iyo waxaas dhan wixii bular ay ku shaqeeyaan where inay ku shaqeeyaan inta kale inay ku shaqeeyaan was inay ku shaqeeyaan tusaale ahaan I iyo we waxay ku shaqeeyaan was ku shaqeeyaan I was we was ma dhigi karto where buugta qaar waxay dhaan waa la dhahaa laakiin waxa ku fiican was ku fiican buugta qaar ay sheegaan marka maxaa leenahay what were you doing last night do-da koowaad maxaan ku bedelnay where ku bedelnay sababta where ku bedelnay maxay tahay subject mention noo yaala wuxuu yahay you mention tell you ne was kuma shaqeysay tennis lixaad magaal joog waxay ku shaqeysaa where ku shaqeysaa
saas awgeeda marka waxaan u siinay ama auxiliary do aan ugu bedelnay where aan ugu bedelnay marka do kalena waxaan raacsiinay ing raacsiinay sababta ing u raacsiinay maxay tahay tenniska lixaad verbkiisa ing la raacsiiyaa verbkiisa waxa la raacsiiyaa ing la raacsiiyaa every day waxaan ku bedelnay last night iyo when waxay auxiliary u yihiin ama adverb of time ay u yihiin tenniska lixaad u yihiin marka waxaan dhahnay what were you doing last night maxaa sameynaysay xalay ana last night maxaa sameynaysay xalay wasarku maxaa sameysaa maalin kasta had maxaa ka dhignay maxaa sameynaysay xalay afayna filaa tenniska waxaan lahay when will you finish the job when goormee will you finish aad dhammayd doontaa baa layidhi the job shaqada tennisku yawaad waa fahansanaa sax tennisku waa tenniska afraad inuu tenniska afraad waxaan cadeynayo wiilkaana waxaan ku arki jirnay aan kusoo baranay tenniska afraad inuu ku shaqeeyo sax waxaana marka when will you finish the job goormaad dhammayd doontaa baa lagu yidhi the job shaqada laakiin tenniska maxay noqonaya when meeshii maxaa taala you aa taala sax marna you taala sax maxay auxiliary ah where marka maxaa leeyahay when were you finishing the job goormee dhammayd doontaa goormee dhammaynaysay shaqada bee noqon asalku maxay goormee dhammayd doontaa shaqada maxaa ka dhignay goormaad dhammaynaysay shaqada yiri when were you finish the job okay sentence saddexaad maxaa waaye he is watching something he isaga is watching wuxuu daawanayaa something shay okay aan ka bedelna marka maxaa leenahay he he was watching something wuxuu daawanayay shay marka sentence afraad idinkaan ii dhaafa asxaabta ala soo xaliyo fadlan ashirkeena ama slaidkeena halkaas uu ku egyahay asxaabta maartay waxaa loo sheegaa haddii su-aalo ay wataan fadlan qaybta commentiga noogu soo su-aal gareey aniga waan kaa jawaabi doonaa saad u fahantay haddii kala markastana ku celceli tennisyada isku bedel macalinka hadduu mar uu 2-3 su-aal ku siiyo adaa laga rabaa inaad isku bedesho saad ku fahmi kartaa asalka hore markaad soo bilaabeen tenniska waxaan dhahnay tenniska marna wuu adag yahay marna wuu fudud yahay markuu fudud yahay waa markii lagu celceliyo markii adag yahay waa markii la iska dhaafo waa marka waxaan rajeynayaa inaad ku celceli doontaan fadlan subscribe share like inta baad dhag noogu sii